kooxda al-shabaab ayaa xalay qaraxyo xoog leh waxa ay ku weerartay saldhigga booliiska degmada Kaxda iyo weliba sidoo kale weerar toos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliya Muqdisho. qaraxyada iyo weeraradan ayaa ka dhacay dhanka degmada Kaxda iyo sidoo kale xaafadda Daarusalaam ee degmada Yaaqshid sida risaalo waxa qeexinay ila dhanka ammaanka iyo xubnaha ka mid ah booliiska. waxaa markii hore dhacay qarax weyn oo lala beegsaday saldhigga booliiska ee degmada Kaxda kadib waxaa xigay rasaas iyo weliba dagaal culus oo ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha saldhigga taasoo al-shabaab u suurtagelisay in gudaha saldhigga ay galaan. muddo hal saac ah ayaa la sheegay in lagu dagaalamay xaafado ka mid ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. ku dhawaad nus saac kadib waxaa dhacay qarax labaad oo aad u culus wuxuuna ka dhacay xaafadda Daarusalaam kaasoo la socday weerar toos oo lagu qaaday guri uu deganaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Hiilwaa oo xaafadaas uu ka deganaa. qaraxyada iyo weeraradan ayaa ahaa kuwo aad u cuslaa oo inta badan xalay saqdi dhexe laga maqlay qaybo ka mid ah caasimadda. booliiska ayaa sheegay in goor dambe la iska caabiyay weerarada al-shabaab oo ay gurmad xoog leh loo diray degmada Kaxda iyo xaafadda Daarusalaam oo ah meelaha ay weeraradu ay ka dhaceen. sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxayna al-shabaab ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta saldhigga booliiska Kaxda inkastoo markii dambe ay dib iskaga baxeen. weeraradan al-shabaab ay ku qaadeen labadaasi magaalo waa labada degmo ee deegaanka Daarusalaam ee Kaxda ka soko waxaa jiray weerar kale oo ka dhacay deegaanka Calamada iyo ceelasha biyaha halkaas oo ina rasaas xoog leh xalay laga maqlay iyo madaafiic ku dhacday xaafado ka mid ah degmooyinka Shibis iyo Shangaani oo Muqdisho ka mid ah. iska horimaadyada ka dhacay caasimadda ayaa ah kuwo xoog leh oo ka dhacay marka loo eego 12 sano kadib. ilaa hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iska horimaadyada iyo dagaaladii xalay ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda inkastoo xalay saqdi dhexe ahaa weerarkii ugu cuslaa oo ka dhacay degmada Kaxda ayaa haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inay jiraan dhaawacyo oo xalay saqdi dhexe qaarkood la gaarsiiyay cisbitaalada Muqdisho 5 sano oo xukunka farmaajo uu joogay waxa u muuqata in al-shabaab ay xoogeystay waqti ay dooraanba ay weerar ka geysan karaan caasimadda. sidoo kale al-shabaab ayaa dhaqaale xoog leh ka sameeya caasimadda taasoo loo arko in 5 sano ee xukunka uu farmaajo uu joogay in awoodda al-shabaab ay aad u korortay. weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa si kooban kaga hadlay afayeenka booliiska oo la hadlay BBC-da wuxuuna sheegay inuu jiro khasaare gadaan ay ka faahfaahin doonaan. banaadirba ay u hiigsanayeen in deegaanadaasi la dego taa ayayna dhibsadeen nabadda iyo horumarka socda waxayna xalay dhibaateeyeen bulshadaas oo degmo waxaan ilaahay uga baryayaa wax yeelowday inuu dhaawacooda bogsiiyo inta ku dhimatay bulshada Soomaaliyeed aan ilaahay u naxariisto. dawlad horta goobaha ay weerareen waa goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aad u foojignaa iyo muhiimadda u lahayd in ummadda Soomaaliyeed nabadeeda la sugo ayagoo u taagan ayaa gawaari lagu soo rakibay waxyaabo qarxa lagu weeraray. marka maadaama saqdhaxa ay ahayd ciidanku waxay iska difaaceen عناصرتي مديدك أها سوى دفاعي iyo halgankii oo saqdhax aawgeed lagu jiro aawgeed bulshaduna lama kulmin tirikoobkoodii waxoodii hadeertaan ayaanaan ku gudi jirnaa inaan qasaarihii bulshada iyo guud ahaan deegaanadaas dadka degnaa gaaray inaan soo tirikoobno oo aan waafajino shuruucda iyo habka uu lahaa ciidanka booliiska Soomaaliya. saldhigga booliiska ee degmada Kaxda ayaa la sheegay in muddo dhowr daqiiqo ay al-shabaab ay gudaha u galeen ayna ku sugnaayeen. waxa ay wararka qaar ay sheegayaan in al-shabaab ay halkaas ka kaxaysteen gaadiid iyo sidoo kale hub ay ka qaateen gudaha saldhigga. lama hubo ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay inkastoo maamulka degmada Kaxda oo saakan la xiriirnay ka gaabsadeen ka hadlida macluumaadka khasaaraha iyo weliba dagaaladii iyo qaraxyadii xalay ka dhacay caasimadda. qaraxyada iyo dagaaladan ayaa imaanaya xilli habacsanaan xoog leh oo dhanka amniga caasimaddu ay ka jiro iyadoo Muqdisho maalmihii dambe ay ka dhacayeen dilal qaarijin ah iyo qaraxyo al-shabaab ay ka geysanayeen caasimadda. booliiska Soomaaliya ayaa la filayaa saacadaha soo socda in sharaxaad dheeri ay ka bixiyaan wixii xalay ka dhacay caasimadda.